xisbiga wadani ayaa wuxuu wadaa campaign iyo olole uu bulshada taageersan kaga dhaadhicinaya inaanay doorashada aqbalin xitaa haddii laga guuleysto si wadanku iskaga hor yimaado waxa uu rabaa xisbigaasi inuu tashwiish bulshadiisa ku furo taasi oo keeni karta hadhow toole isku dhac bulsho iyo in aanu aaminin qofka xisbigan taageeraa inaanu gabi ahaanba aaminin in doorashada laga badiyo waxaan idin dhageysiin doonaa kaleebiyo dhowr ah oo caddayn ah oo ku tusaya in xisbigaasi gabi ahaanba uu run rabin in doorashada marka la galo uu aqbalo sababta ugu weyn ee taa keenaysaana ay tahay inuu dadkii ku celcelinayo waa laynaga shubanayaa doorashada inagaa helena inagaa ugu cod badan cidaan inaga ahayn suurtagal ma ahayn ay hesho markan waa markeeni waxyaabo noocaas ah marka nin dhan oo mas'uul oo wareysi laga qaado baan idin dhageysiinaya bal hadalkiisa lagu kari lahayd doorashada aqbal bal waa kan eeg xisbiga wadani aad maanta wadato haddii doorashada madaxtooyada laga guuleysto sidee waragtaa insha Allah lagu guuleysan maayo haddii ay dhacdo laga guuleysto wax waliba waa suurtagal waxaan ku wari waan kaaga jawaabaan ugu dhahay celini insha Allah laga guuleysan maayo haddii laga guuleysto insha Allah laga guuleysan maayo horta ilaahay ku rumeeyo oo qofka de waa insha Allah laga guuleysan maayo waa sax laakiin meesha waxa laga rabay waan aqbalayaa haddii la iga guuleysto waxaan la sameynayaa waa doorashadana bulshada ayaa haysa qofka ay markaa dadka reer Somaliland u gartaan inuu wado ama meel gaarsiinaya ama madaxtinimada ayuunba codka la siinaya ama Cabdiraxmaan Cirra ha noqdo ama Faysal Cali Waraabe ha noqdo ama Muuse Biixi ha noqdo ama Ina Kaahin ha noqdo cidii ay xisbiga kulmiye u soo gashado maadaama uu wali warkiisu cadayn isaga una oran qofkaas ay sharaxan bal adigu taasi cidii ay u gartaan dadka reer Somaliland ayaa horta doorashada codka la siinaya maaha markaa inaad tiraahdo insha adoo cadhaysiiba insha Allah laga guuleysan maayo dee waa laga guuleysana shalayba afka boardka lagu daray maantana kii un baa tahay dadka codeeya markaa inaad sidaa u hadasho ma aha waxa kale ku dhageysiinaya muuqaal kale oo eeg ay dadka tusayaan in shirkad muwaadiniina oo reer Somaliland ay codad u daabacayaan mar walba dhinacbadii maalin hore waxay lahaayeen indhaha bahal lagu eegaya jigjigeer lagu haystaa wax saasa yani dadkii bulshadii wax kala dhex dhigayaan marka shirkadda Sagal Jad bay eedeynayaan oo la leeyahay doorashada iyada wax soo daabacaysa si loogu shubto bal marka ninkan kale ee mas'uuliyiinta snack madaxweynuhu wuxuu isleeyahay Sagal Jad baa ku soo saaraysa ilaa in xukuumadda doorkii hore la shaqeysay iminkana ay xukuumadda la shaqeynayso waan uga digaynaa wadanka in laga sameeyo waraaqo beenbeena okay shirkadda Sagal Jad waa shirkad muwaadiniin oo wax soo daabacda laakiin komishanka doorashooyinku kama daabacdo iyada codadka waxa weeyaan waxa lagu soo daabacaa meelo kale waa barnaamij elektrooniga oo nidaam oo intay axsaabtoo dhan eegtay la isla gartay xisbiga wadanina wakiil buu geystay meesha iskamu geysan inuu iska tago oo ninbaa uga wakiila oo matala komishanka waxay ku leeyihiin share waayo komishanka qaranku maaha wax cidilaadahay xukuumad leedahay waa share axsaabta golayaasha baarlamaanka sharci dejinta fulinta waxaas oo dhan baa wada leh marka wax la shareholderska doorashada nimankaasi ayaa markaa waxa ay isla gartaan ba horta soconaya wax kala soconaya maadaama uu wadani ka mid yahay kuwaasi muraaqibiin ku yeelanaya goob aanu wadani joogin lagama yaabo in doorasho ka dhaco taasi inay markaa maanta tashwiishkaasi geliyaan dee waa hadhow toolaanagu doorashada ma aqbalo noocaad waxaan idin tusinayaa wixii bulshadani laga heshiiyey shalay tola buur buu xisbiga wadani koray dhibaataa dhacday dad baa dhintay waa la heshiiyey waxa la yidhi war maanta nagu qaata mag baa la bixiyey askarteeni baa la laayay dhibaataa dhacday nin baa intuu kibray buur la koray intuu dad toogtay waliba la cafiyo qasab lagaga dhigay inuu madaxweynaha bashir dadka iyo dalku ay walaal noqdaan maanta inay xisbigii wadani dadkii hormarmariyaan ninkii eheladoodu dadkii ay ka dhinteen oo daawadaan oo ninkii oo faraxsan oo boqor laga dhigayo
waa ayaan darro kale iyo mushkilad kale iyo fitno kale oo la abuurayo bal waa kan ninkii oo foreign excel loo buunbuuninayo maxamed taageerayaashaada iyo ummadda cadaaladda had iyo jeer waxaad cadaaladda dadkuna waxay ummadda Soomaaliyeed cadaaladda had iyo jeer u dhinta ummadda Soomaalida way haddaba niyow bal horta haba ii dambeeya ninkan iyo hawshiisu iyo waxaan idin weydiiyey wadani hadduu meel tago maxaa Soomaali ku raran Soomaali jiradana la yaabay moogti maalin dhaw Jacashabeel baa hadlayo Soomaalidoo dhan waa inay taageertaa buu xisbiga warma Soomaali baa xisbigan taageerta mise Somaliland ninkan buu leeyahay xuquuqda dadka Soomaaliyeed buu dowlad qaramada midoobay geeyo Soomaaliya matray orado hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda geeyo Soomaaliha u dooday aaway goormu oo fareen xuquuqda Soomaali ee ka dheeriga u fiirso xuquuqda dadka Soomaaliyeed waa dadka reer Djibouti waa dadka Kenya ku nool NFD waa dadka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa dadka Soomaaliya oo Puntland iyo Jubaland iyo Tareer iyo Balaayo hawli qadaadweyn oo dhan leh waa Somaliland waxa soo dhan baa la isku yiraahdo qoomiyadaha Soomaali kuwa qurba jooga mid dhibaato kaas xuquuqdiisa u dooda teetalkaas ninkaasi ninkan waa nin taageera xisbiga wadani eeg ninka la yiraahdo Baabullah isagoo oo taageersan buu buunbuuninaya u hormarmarinaya ninkii shalay dambiyadan geystay waxay taasi halka kaaga soo baxay maadaama aanu haysano oo fareen doorashada haddaan nagu qaadan weyno waanu carqaladeynaa dadka waxaan ku orananaa waa la nagaga shubtay haddii la nagaga shubtayna waxaanu sameynanaa dagaal baan gelinanaa oo cirrintu halkaas soo istaagay in xibada miyeydaan isku dhigayn dadka miyeyda berritoole marka waxa la leeyahay xabadii isku dhiga dagaalama rasaasta hal isla dhaco dalkan iyo dadkan hadumo walibana waxa la rabaa in ujeedka ay nimankaasi Soomaaliya leeyihiin waa hal mabda oo kaliyata awood kala weeyay waxa weeyaan reer Sheekh Saxaaq dhexdiisa intuu iska yimaado qabiil ahaan isku dilo ahsaabti qabiil bay dadkii u kala rarayaan way kala fogeynayaan reeray ka dhigayaan wal kala marka waxaan leeyahay waaril maadeereeyal reer wadaniyo hadaad ka doonaysan Somaliland cod fursad baad haysataa fursadaas waxa weeye inaad hal shay tirahdaan dalkan jamhuuriyadda Somaliland qarannimadiisii waa lagu soo duulay waa la idinka waaniyay iyadoo cad oo inuu arkana in mashriq iyo maghrib la isaga yimid waxaanu idinka weynay inaad ereyga noo tiraahdo adigoo xisbigiya dhammaan ahsaabtii digaaga ee meelaha kale ama Djibouti ha noqdaan ama Soomaaliya ha noqdaan ama meel kale ha joogo qof kasta oo Soomaali wuxuu yiri badbi iibinayaan reer Somaliland adigu inta halka soo istaagtay maad oran warbad ma iibinayna dhulkayaga ka ganacsanayo nidaam baan leenahay ka baxa ciidankii oo halka lagu wada faraxsan yahay jabkiisii oo loo wada ooyay halka wax la soo taagantiin Allah saarod baa kibir lagu doontayo ciidankii uu jabiyay in bixiyo kan kale campaign-kii uu ka xumaaday safarkii madaxweynaha maanta soo xirxiray fursad bedel fursad baad ilmaadeeyaal haysataan doorashadana ka daaya tashwiishka dhalinyarada ku celcelinaysan dadka ku celcelinaysan waxani mararka qaar dadka taageera xisbiga wadani marka la sheegay wuxuu oranaya ama hal waayo ama hal helo waanu helana waadidna wala duminaya wallahi dad badan marka la sheegay noocaas ku oranaya taasna waa qalad aad u weyn qarannimada in la hatiyaa maaha ninna dan uma aha haddaad u haysato ninka reer Somaliland kulmiye taageersan ama taageersan inay dan u tahay nabadda iyo wanaagga iyo barwaaqada aad ninna dan uma aha xisbigan ay dadka siiyaan doorashadu waa sir waa cod sir qofka ay siiyaan reer Somaliland u baqaadeen barnaamijka sheergareey meel ku gaarsiiyay